السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ولاشين أدقون أو قلبي إذن كسلام يسا ولا ليال وحا إذن ليها I love you مالك استأدون كده على ذي سأد كغنو يشيهين سلامك بعدي ولا ليال هدي عجلة إذا أعرفتين لايك شير كومنتيغ وادنكين قنبلال كنا taabta si aa cajalad kasto aan soo duuba aad ula socotiin hana iga baqaylina intaas waa aniga ah walaashin udgoon waxa kale halkan raacinaya aan jeclahay inaan kaga faa'iideysto inta magacayga ama muuqayga garanaysi inta ila dhalatay inta eheladeyda intaba waa salaamaya waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu salaantaas oo salaanta adduunka ugu qaalisan waa aniga ah walaashin udgoon walaalayaal maanta mawduucaygu waxa weeyaan sheekadaas oo ah qiso nin ku dhacday kana dhacday gobolka Itoobiya kililka shanaad ee Soomaalida ee degta wiil walaalkeen ah oo Soomaaliyeed ayaa waxa asagoo socdo wadada maraya ayuu wuxuu arkay ay ooynaayo oo meel wadada dhexdeeda ah fadhiyo aygi wiilku ku soo leexday wuu fiiriyay lug baa ka fashfashtay oo dhacaan ka daadinaysi dhiigna ka daadinaysi oo aad u gogo'day wiisku ooynay markii aygi ooynay sida ogtihiin aygi sidiisaba wuxuu u ooyaa sida dadkii oo kale ayuu u ciyaa sometimes markuu ama xanuunsan yahay ama hinraagayo kale wiilku wuu fiiriyay aygi kamuuna tagin wuu qaaday gurigiisu geeyay lugti buu ka dhayay wuu daaweeyay adi bil iyo muddo intaas inay tahay aan jeclahay 3 week ilaa iyo 4 week inta u dhaxaysa amal baa la yiri ayuu daaweeyay markuu aygi daaweeyay oo aygi lugti ay u fiicnaatay oo lugti uu ka daaweeyay oo lugtiisa isu raacday oo uu caafimaaday oo cunto iyo biyo iyo wuxuu rabana halka ku siinayso wax walba intuu daawo u soo gado lugti ka dhayaayay faashid kaga duubaayay aygi markuu caafimaaday ayuu ayga albaabka ka furay uu diray meesha uu ka imaaday duurkiisa de uu u diray aygi muuna bixin ninka intuu ku soo meereystay lugihiisa saa ugu meereystay uu ku meereystay oo lugaha uu iskiga marmaray oo uu ooyay buu baxay baa la yiri aygi uu iska baxay aygi muddo markuu maqnaay baa aygi oo ay kala lug xanuunayso lug ka fashfashtay wada baa haddana guriga albaabka soo istaagay albaabka garraf cidii lagu siinaa iyo qayli ay wuu yaabay albaabku tagay wuu fiiriyay wuu furay waaba aygi wuu imaaday lugihiisu iskiga duduubay kii lugta kala xanuunayso tusina kan iyo imaaja xoolaha xitaa aqliga qabaan ka warramo lugti wuu tutusiyay adi calaa itaxaal aygi lugti buu arkay wuu fiiriyay ninkii aygi kale ninkii buu lugaha iskiga marmaray wuu hadlay wuu qayli wuu iska baxay albaabku ka baxay ninkii aygi kale meesha u soo jiifsaday lugti buu hadina ka daaweeyay faashad kaga xiray wuu daaweeyay markuu daaweeyay aygi hadina sidoo kale wiilkii wuu bixiyay markuu ayga daawoobo u fiicnaaday lugtiisa ay u caafimaad qabto u baanatay ayuu albaabka ka furay uu iska tagay sidii ayga dib uguma soo noqonin walaalayaal marka maasha Allah horta wiilkaas ajir buu shaqaystay laakiin wadankanaga aan naga ka dhalanay ee Soomaaliyeed ma lisdhihi karaa wuxuu la dagila yahay ama dadkii ay la gubanayeen oo dhiig maalin walba u daadanay ma lisdhihi karaa xawayaanada biyaha wasaqda lagu shubay sida bisadaha kale maxaa la dhihi jiray ayga markii la arka la tuuriyeenayo kale oo laga yaabo inuu haraad hayo oo man yahay oo kale oo biyo u baahnaayo kale ma laga yaabo ma isleedihiin asxaabe ya bal haddii aad isleedihiin in qaabtana haysata ama colaada dhiigga naga daadanay ama dhibaatadana haysata xawayaanada wadanka dhexdiisa ku dhibaataysan ku ooman ku gaajaysan ee haddii dil aan ugu sii dareyna ayaa kamid ah haddii aad isleedihiin please commentiga hoos igu reebo maxaa la dhihi jiray isoo commentiga igu soo sheega wixii oo adinka aad ka dhigaysiin xaqiina ani kolley waxaan isleeyahay kolley wadankanaga dad isjecel aan nahay oo isku tiirsan oo adduunku isku jecel baan nahay somehow hadilino
waa isnacebnahay waxaan ugu dhex jiro marka waxaan isdhahay maadaama dadka dhibaatadan ay haysato wax dhibkan uu ka imaanayaba waa xawayaanada oo animalka masaakiinta ah oo wax aan qabsani karin oo iska masaakiinta ah ee aan dayaca magaalada dhexdeeda ama xaafadaha ku nool ayaan isdhihi karaa aniga marka idinkana wixii oo maxay ahayd dhinaciina ah waxay igu reebtiin commentiga igu reebo meel kasta adduunka ka joogtiinna waa idin jeclahay waxaa idin leeyahay I love you so much asxaabey yaa baahay qofku walaashiin udgoon please commentiga like share ha iga iloobina marka sheekooyinka qisada ahna saana usoo dhexgelinaya programka la socdo وأنا إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال